بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديدا للجميع سيدنا الله جبيا ورئيس وزاره جمرك أوينايا إسرائيل درتنا أوينايا هل نفس إسرائيل تايدونا بإذن الله تعالى سياسة روح عن كهل دونا إسرائيل أو كوب حين يسبب بخل أفرتن إيشان مليون كلية سمعة هذا سيد الله سعيلنا عيد سعيلنا يسان وأنا يلا تيك توك إيو إنستغرام كشخيصة إيرير مريكان نتنياهو حكى هذي تلو goobood oo dagaal inay ku furan yihiin asagoo shacabkiisa la hadlaaya iyo ku soo daray todobaad goobaad aan ka hadli doona biidin Allah tacaala walaasheena Soomaaliyeed Shifa oo hadashay waan ka hadli doona iyadana sidaas oo kale iyo arintan dabcan oo ayadana maanta 9 doomood kale ay Israa'iil qabatay tan waan ka hadlaynaa insha Allah tacaala Pakistan waxa ka dhacay taa waan ka hadlaynaa aan soo ku bilowna hal mar ninka Trump ahaa horta Trump wana aragsaday waxaan maqli jiray wixii xun baxaawale soo taas oo kale yani wuxuu noo daba dhigtay si aan caadi ahayn tusaale walba oo xun waa Soomaali waliba soo dhahay Soomaaliya yani I'm getting calls from Democrats wanting to meet. I never even heard their names before. wuxuu leeyahay meelasha uu leeyahay macnaha waxaan telefoon ii soo diraya qolada dimuqraadiyiinta kamid ah xataa maba garanayo qaar kood magac maba garanayaba And they're claiming to be leader. The Democrats have no leader. wuxuu leeyahay marka qaar kood waxay sheeganayaan inay hogaamiyaal yihiin hogaamiyana malahan uu leeyahay They remind me of Somalia, okay? You know? And I met the macnaha waxaan xasuusinayaan inuu yiri Soomaaliya yani hogaamiye malahan Soomaaliya xasuusinayaan warninka ayaa naga cishta isla daqiiqadii isla secondkii wuxuu leeyahay met the president of Somalia. I told him about the problem he's got. I said, you have somebody from Somalia who's telling us how to run our country. macnaha markaas wuxuu leeyahay waxaan la kulmay madaxweynaha Soomaaliya markaas waxaan ku dhahay qof wadankeena ka socda ayaa wuxuu noo sheegay wadankeena san u hagaajisan lahayn oo ma aanu maamuli lahayn ogow waa farin weyn macnaha wadankeena ma maamuli kartaan oo wadankeena maamuli weyseen markaasayna leedahay wadankan anaga san u quruxsanay yani sida loo maamulo idin sheegay ilahana ula jeeda wuxuu leeyahay waa taqaanan ciidan ula jeeda uu leeyahay laakiin arinta laabka waxay tahay inta Army of Somalia, okay? You know? macnaha wax walba tusaale walba ma kula tahay adiga ma aragtaa dhul la galid iyo ijaafayn magaceena iyo sumcadeena inkastoo caalamka carab iyo muslimiin iyo gaal iyo yani muslimiin guud ahaan aanan sumcad ku lahayn Soomaaliya hadana xaqiiqdana saa ay tahay ana si kala iska dhaadicino laakiin caalamka sumcad ma taalo laakiin Trump inuu sida maagaga noogu furo speakerada caalamka oo telefishinadii soo qaataan yani sad u aragtaa adiga ma loo jaabi karaa soo ka boon loo jaabi karaa macnaha ilaan ogow arintan ma ahan oo kaliya hadal la iska yiri laakiin caalamka dhigahooda waxa ay ka qaylin doontaa arintan ay macnaha ku soo laaban doontaa intaas oo sano soo socota cid hadlaysa waa madaxweynaha Mareykanka cid laga hadlayo waa ummadan Soomaaliyeed macnaha sida loo bahdilayo habeenii maalin yani normal soo laabanaysa saad u aragtaa adiga taawata dhinaca kale hadaan u gudbo Pakistan maanta waxa ka dhacay weerar waliba taqriiban xogaa yar ka hor weeyaan hadda adiga nus saac ka hor xilliga hadda aan video u fadhiyan duubayo weerarkaasi dhinaca xuduud Afghanistan oo ka dhacay 9 askarta Pakistan iyo waliba saraakiil ayaa lagu dilay caadiyan Pakistan arimahan kuma cusub ay ku soo laabtaan xalna way u laadahay waxayna dhahaan waa dagaal nala geliyay oo aanan u baahnayn qayb dagaalka ka mid ah نعم وكيم Mareykanka ay isku jireen oo hadee si markaasi ay u galeen mid kalena waa dabcan mid hadee wax ka qabasho aan lahayn si hadii loo fiiriyo maxay xuduudii iyo area isku haystaan ay Afghanistan marka lama yaqaano qolada kooxda ah ee fulisay weerarkan ma Afghanistan xuduudda isku haysteena maqlooyinkii Taliban macnaha Afghanistan ahaay yani dhinaca Mareykanka ciidamadooda saa ku haystamiya lama garanayo laakiin ragcul culus oo saraakiil waaweyn ayaa lagu sheegayaa in ay ku jireen dilka la dilay dhinaca kale waxa jiray saad ogtihiin doomihii ay Israa'iil qabatay macnaha tirada badnaa laakiin 9 doon kale ayaa soo baxday oo jidka ku soo jiray oo taqriiban salaada subax xilligan hadda aan waxa laga joogaa waa 4 saac meelahaasi ka hor ay Israa'iil naqsiisay qabatay ogowna waxa maqnaa oo wali Israa'iil xabsigeeda ku jira dad badan oo baasaboorada carabta haysta iyo baasabooro kale oo adiga iska hooseeya laakiin baasabooradii Mareykanka iyo Yurub iyo kuwii haystay badankooda way soo deysay maxay lama hayn karto mar hal mar Shifa oo ka hadlaysa arintaasi aan idin sheegay Shifa
فاعل واحد من سوق اسيا مقاي gacanta ma ka finish ko ogaa ناقين من شوي جيران يجي جينا وحلق لي أصلا فيها هذا ذكر لي إحنا منويا لكن أنا أقول لهم قوايا من قبل سنين سمح كل عيب ولا أي حاجة أنا هذا الأوروبيان أتفاصيل الأوروبيان هاي سنة بقول لهم تقول ما مرينا بقول كانوا قوايا حلو شوي هذا يعني دول على مسألة ضد عن أوروبيان هاي عرب كل دول ضد كواهير كل خشوع كأي كلام سوى جينا أنا بحنوش نوع أفريقيا سكر تركيش كا اللي جينا يجوزها بس أنا ما هي سايم بس يالله كأساني سلام هذا حلو صار يوروبيان هذا ولا صوت لكن تم كل ولنا حتى لو سوري قابها أنا لو صوت أنا إسبانيش أقول لكن أنا لما كسبت حين هو يجوا يعني عرفت أو لما رفعت في الشيء الجيريان bulshada Soomaaliyeed ee adduunka oo ku dhaqan kuwa fiilna way ka walwalaya intaan kale lama maqlay dabcan almuhim in madax meel loo geliyay in cuntada macnaha loo haraantinayo halka loogu tuurayay 30 saacadood inaan cunto la siin ayaga maadaam baasaboorada ay haystaan European ay yihiin Mareykan iyo tusaale ahaan in la soo daayay kuwii Carabta ahaa iyo Afrikaantii inaan la soo dayn maadaam baasabooradaas ay haystaan meel ay hadda macnaha ku soo yihiin xaalad ay ku soo yihiin cidna aanan garanaynin iyo baaq ay dirayaan oo ah in dadkaasi la soo day loo advocate gareeyo ay ka hadlaysaa intaasi waa inta Netanyahu hadalkii shalay oo jeediyay dheera ee uu soo qoray sidaas oo kale dabcan cod ahaan uu jeediyay wana soo qoray wuxuu ku tilmaamay 7 furun ayaan ka dagaalamaynayo uu leeyahay dadkiisa la hadlaya dabcan 7 furun waa tan Xisbullah tan maxaan ku dhahay Suuriya soo sheegay cid la dagaalamay Suuriya ma laha laakiin wuxuu sheeganayaa inuu area isaga dagaalamo xilliga doonanay galaan waxay doonaan soo qabtaan waxay doonaan ay ku sameeyaan way ka soo laabtaan haddana cid u jawaabaysa horta Suuriya dhinaceeda ma laha laakiin wuxuu ku tilmaamay asaga furin inay tahay almuhim tadaba goobaan ka dagaalamayna kada wixii la midka shacabka markuu wuxuu ku sasabaya ama uu ku sameeysiinaya wuxuu leeyahay hol adag idin haynaa waan idin maqanahay ku seexda wiilashiina dagaalamaya ee gabdhihiina haba yaraatee wixii la gaaray nama jabinayaan cadawgeena way arkeen wixii aan ku sameynay waa hadalkiisa fariintiisa ahayd dhinaca kale in yar aan islu taagno arintan 145 milyan ah ee uu Israa'iil bixinayso waxa ayna siinaysaa dadka Instagram-ka iyo ka shaqeeya TikTok-ga dhalinyarada gaar ahaan oo waliba saameynta leh arinta waxa la leeyahay sharciga Mareykanka ee uu oleynta dawladda shisheeye ay ka hor imaanaysa laakiin already arintaasi hadda uu ahaanay waa wax hore u socday lama shaacin jirin hadda laakiin in la shaaciyo arintan waxa keentay sida la leeyahay macnaha qolooyinkii Israa'iil inta ay biilaysay howl way qaban waayeen haddeertan marka ayaga waxa la tusayaa ogaada waa idin la socdaa in lacag la idin siiyo oo annaga idin ku bixin oo kale kada yani handadaad nooc min handadaad ay ka mid tahay ogow hadde sumcadaasi cid soo celin karta haba yaraatee malaha tagtay ugu dambeyn Jarmalka waa ra'iisul wasaarihii Jarmalka una oynaya Israa'iil darteeda shalay wuxuu ka hadlayay iyo daraadba hadal kala duwan oo hadlay mar waa la wareystay wuxuu ka hadlayaa oynaya dibkii loo geystay Israa'iil aroortiisa loo galay xilliga Holocaust-ga macnaha ay Jarmalka ay laynayeen ka hadlayaa ogo xilligan hadeertan hortiisa ama meel saaga fogeen mudaharaada ka socda oo Gaza ku saabsan caruur la laynayo dumar la laynayo normal caadi laakiin cid hadii la jibinaysa soo la jibiya mid kale ku darso wuxuu u doodayaa oo leeyahay annaga Jarmal hadaan nahay waxa laga yaabaa aan consider gareynaynaa oo aan ka fakarayna inaan ka baxno Eurovision hadii Israa'iil laga reebo waa meelo adiga marna waa heeso iyo adduun iyo tartan saas oo kale la isugu yimaado Israa'iil marka ku jirto mar walba adiga kamid tahay wadamada Yurub ay ku jirtaan way ka soo qayb gashaa tartamayaasha gaar ahaan iyo xataa dhinaca Bruniga wuxuu taagan yahay annaga Jarmal hadaan nahay Israa'iil haday meesha ka maqan tahay ama xogaa si lagu sameeyo anana ka bixinaa hadda ogow waa Jarmalka Israa'iil Netanyahu wuxuu sheegay mataqaanaa sida Jarmalka loo jabiyo aan u jabinay waa inaan Falastiiniinta u jabinaa ilaa ay noo ooyaan ilaa ay kada waana kaas hadde ra'iisul wasaare uu ooynay bar maxay kula tahay arintaas jab ma la dhahaa kan masixira la dhahaa kan ra'iisul wasaare yani wadan inuu wadan kale dartiisu ooyo
waddankaasoo weliba xilligan lagu eedeeyey maxkamadda caalamiga ay ku eedeysay inuu xasuuq geysanayo sid aragta intaasaan kusoo koobaya asalaamu allahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu